waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed oo ayaga maaragtay sugayay arrimahan dadkii goobjoogka ah ee xildhibaanadii inay warka siiyaan saaka aniga waxaan ku jiray xildhibaanadii gudaha ku jiray oo tagay xildhibaanadana way badanaayeen koorumna way dhamaayeen waxaan u aragnaa anagoo u tagnay inaan maaragtay xilkeena gudano waxaan u yimid gudoomiye ku-xigeenka koowaad mudday wuxuu salaamay wuxuuna noo akhriyay warqadii uu Jawaari isku casilay gudoomiyaha mooshinka ka yaalay warqadii uu isku casilay noo akhriyay meeshana waa lagu soo kala tagay waxaan u arkaa arintaas arin socotay oo xildhibaanada ay ku kala aragti duwanaayeen oo hadda maaragtay soo gabagabowday runtii waqti badan baa maaragtay xildhibaanada labada group aan dhaho laba groupna maaha xildhibaanada Soomaaliyeed oo kala aragti duwanaa oo intaas u shaqeynaya qoloba inay guuleysato aragtidooda maanta maaragtay inay arinta soo gabagabowday meeshaasayna ku dhamaatay kala aragti duwanaantay way dhamaatay xildhibaanada waa dad wada shaqeeya baarlamaanka wada jooga u shaqeeya ummadda Soomaaliyeed iyo wixii loo doortay inay maaragtay qabtaan waaye hadallada maaragtay ee magaalada ku jiro shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa wax dhib ama jiraan mooshin waxbaa loo saxaa ceeb ma aha maaragtay dhibaato ma keeno waa dastuurku ka mid yahay oo ku jira waa maaragtay waxbaa dadka ku kala aragti duwanaayeen waxbay meel isugu yimaadaan maanta xildhibaanadii waxay way dhamaadeen sidoodii xildhibaano u yihiin sidoodii u wada shaqeyn doonaan waxaa suurtooda kuwa iska soo horjeeda inay arrin kale ay isku raacaan oo maaragtay ay isugu kaalmeeyaan marka ma aha waa la kala go'ay ma aha waa lagu kala maqan yahay ma aha isuma soo noqonayo sidii inta la isugu soo noqdo oo loo wada shaqeeyo oo maaragtay kuwii kala aragti duwanaa berri waxaa suurtooda arrinta mid inay hal aragti ka wada noqdaan marka dad walaalo ah oo saaxiib ah oo Soomaali ah oo wadanka u shaqeynaya waa baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay ku kalsoonaadaan shacabka Soomaaliyeed oo walwal gelin arrintan way degan tahay dawladana aad ay uga shaqeysay maaragtay ammaanka iyo security-ga wixii dhacayay inaan xabad dhicin inaan dhibaato dhicin in hawshan si nabad ah ay ku dhamaatay gudoomiye Jawaarina waan uga mahadcelinayaa waan ku faraxsanahay go'aanka uu gaaray maanta inuu maaragtay uu ka odayeeyay aragtidii kala duwaneed inuu ka odayeeyay wax badan buu soo shaqeeyay inuu maaragtay maanta uu u arko hadiiba lagu murmay inuu dhinac ka fariisto oo ummadda Soomaaliyeed ee xildhibaanadii iyo dadkii uu u sahlo waana uga mahadcelinaynaa waana ka odayeeyay odageynuna ahaana mar walba bismillaahi raxmaani raxiim boqolkiiba boqol waxaan soo dhaweynaynaa tanasulka bismillaahi raxmaani raxiim boqolkiiba boqol waxaan soo dhaweynaynaa tanasulka uu sameeyay gudoomiyihii hore golaha dhexe isutaka dalkan afka Soomaaliga ku hadla mudane Jawaari boqolkiiba boqol baa ugu taariyeynayna tanasulkaas oo kalena aad buu fiican yahay waxa kaloo wanaagsan naftirkeeda hadda xulashada dambana waxa la xulanayo waxa la soo dhisay waa la iska rabaa waxay noqdaan iyo waxa ay yacni noqon karaan in laga fiirsado taasina waa loo baahan yahay baarlamaanka naftirkiisana waxaan u sheegaynaa haddii aan dadweynihiinahay Soomaaliyeed aad baa loogu dhibaatooday mooshimada faraha badan ee ilaa 20 sano oo ilaa xilliga TFG ilaa xilliga kan aan joogno socda ee meel aan jahal la ogolayn waxaa mid kale wanaagsan in loo noqdo xisbi isku dan ah danta Soomaaliyeed
iyo danta macnaha ummadatan iyo manaahijtooda iyo magaciisigooda kulli yacni in la daneeyo taas ayaa danta ku jirtaa waxaa kaloo lagu gartaa dawlad markii ay rabto in ay horey u dhaqaaqdo ama ummad wax u qabato koo waxay ka bilowdaa manhajka iyo gaashaandhigga sababtoo gaashaandhigga waxaa la yidhaahdaa haddaad rabtid nabad awood laga baqlahow manhajkuna waxa weeye xikmadda tiraahda adoon baran ha ka hadlin adoon baran meesha hadda ay marayso macnaha iska qaato wuxuusan lahayn iyo doona wuxuusan aqoon iyo sheegto wuxuusan ahayn yacni waa dhibaatooyinka hadda dalka haysta waxaan ugu hambalyaynaynaa marka mar kale sida sharafta leh oo adagu yacni u tanasulay meeshii shalay ay Soomaali ka siisay macnaha sharaftii iyo aqlabiyadii iyo codkii iyo kulli kalsoonidii oo dib ugu soo ceshay waa ku mahadsan ugu hambalyaynayna hadda waxaan leeyahay ninkii ku hadhay hawle haysaa dadkiina meesha ku haray baa looga baahan yahay cidaad keeni lahaydeen iyo wixii aad gudoomiyihii hore ku dhaliisheen cid wax yacni wax ka wanaagsan keenta laakiin waxaana dilay oo haddana aan caado u yeelanay waxa la yiraahdo dulmi diido dulmi doonay dulmi buu ka dagaalamayaa qalad buu diidayaa xilkii buu qabanayaa ummadii hor imaanaya asaga wixii wax ka xun sameynaya dulmi diido dulmi doonay marka looma baahna dulmi diiday baanu rabnaa waa mahadsan bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxaan ahay ururka haweenka qaranka ee qaybta abniga waxaan leeyahay maadaama uu is-casilay ninkii la dhahayay Jawaari oo gudoomiyaha baarlamaanka waxaan leeyahay waa mahadsan yahay sababtoo ah anaka hadana haweenka Soomaaliyeed waxaan ka shaqeynaa nabadda iyo dib u heshiisiinta waxaan leeyahay waa Jawaari nin soo shaqeeyay waaye nin wadanka wax badan ka soo shaqeeyay waaye nin oday waaye waxa laga yaabaa inuu u adkayso waaye akiraada bulshada haysata oo akiraadtaas madaxeeda isu casilaa laga yaabaa waxa waaye sideeda banaan anaka waxaan jecelnahay in dawlad la helo in nabad la helo in maaragtay shacabka ay helaan meel ay ku ganacsadaan jid furma waxaasay jecel yihiin shacabka anakana shacabkaan u doodnaa hadana haweenka Soomaaliyeed waxaan jecelnahay in maaragtay Jawaari nin mahadsan uu yahay oo bulshada u naxay nin oday soo shaqeeyay uu yahay nin wadanka wax badan ka soo shaqeeyay uu yahay waxaan leeyahay waa mahadsan yahay waxaan jeclaalahay baarlamaanka inuusan mar dambo uusan keenin mooshin iyo dhibaato iyo waxa shacabka wax ka soo gaarayaan waxaan leeyahay dawladdu ha shaqeyso hana la joojiyo wixii maaragtay arqalada kan cusbo imaan doonana waxaan jeclahay inuusan asna mooshin iyo balaayo uusan keenin oo lala shaqeeyo oo shacabka Soomaaliyeed loo daneeyo oo dalka loo daneeyo oo wax qabadka loo daneeyo haddii macnaha dawladdu isqabqabsato shacabka dhibaato ugu jirto shacabka wadooyinka waa ka xirmayaan ilmuhu iskool aadi ma karaan wax ma la qabsan karo war dawladnimana deeqdo wax kale ma deeqaan dib yaan noola celin dad waxaan nahay Soomaaliyeed dad wadankan wax uga baahananahay dad wadankooda ku ciyaaray wadan kale ma laha waxaan sheegayaa aniga shacabka Soomaaliyeed markaan nahay in dawladnimada la taageero nidaamka jira la taageero nidaam la'aan ay dhaantaa ma aha dawlad dhisan in la arqaladeeyo oo la rabsheeyo oo balaayo loo keeno oo halees casil la yiraahdo dhibaato ay ka timaado ma jecli haweenka Soomaaliyeed hadana waxaan jecelnahay in dawladnimo la helo in kala dambeyn la helo in bulsho shaqaysan la helo aan jecelnahay war nabadda dan noogu jirta waxaan u mahad celaha 100% aan u mahad celinayaa gudoomiyaha baarlamaanka oo is-casilay u turay shacabka sidaan aniga isleeyahay marka waa idin salaamo salaam calaykum salaamaya odigaan waa u hambalyeynaa maadaama uu xilka iska casilay waxaan leenahay kan hadda imaan doonana waa u hambalyeynaa asna soo dhaweynaynaa gabdhaha Soomaaliyeed danahay meel walba aan joogno waxaana ka cawanaynaa oo si weyn uga cawanaynaa saaka ardaydii oo meel ay maraan la waaye iyo gabdhihii shaqaalaha ahaayeen oo malaamileydii iyo wadooyinka dhan oo xiran anaga wadan walba waa tagnay Kenya ka imaanay haddana xamar aan joognaa waa dalkeena hooyo waxaan jeclaan lahayn mar walba inaan nalaga ilaaliyo wadooyinkan la xiraayo maadaama ay dhibkana iska sii fara badan tahay
ninka hadda iscasilina waa u hambalyeynaya ra-iisul wasaarihii hore